Qurxinta dumarka guud ahaan oo loo yaqaano makeup-ka iyo soo saarista kareemooyinka dabiiciga ah waa waxyaabaha gabdho badan ay ka dhigtaan xirfad cajiib ah oo lagu shaqeysto. Tani waa Ayaan Maxamed Daahir. Waxay ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed oo muddo ku noolaa dalka Kenya, balse dalka dib ugu soo laabatay si ay xirfadeeda ugu faa'iideyso gabdhaha Soomaaliyeed. Ayaan Maxamed oo loo garan og yahay Ayaan Dhalad ayaa waxa ay caan ku tahay soo saarista kareemooyinka dabiiciga makeup-ka kala duwan ee dumarka. Sidoo kale Ayaan Dhalad waxa ay soo saartaa kareemooyin dabiici ah oo aanan lahayn wax kiimiko ah. Kareemooyinka ay soo saarto Ayaan waxaa loo isticmaalaa maqaarka iyo timaha guud ahaan iyo sidoo kale guud ahaan jirka. Ayaan Dhalad ayaa nagu soo booqatay Muqdisho Cable TV. Ayaan waxaan weydiiyay fikradda cusub ay soo saarista kareemooyinka dabiiciga ah waqtiga ay ku dhalatay. Horta waxay ugu dhalatay muddo hadda laga joogo 2 sano. Kulay waa iska fahmi kartaa dhalinyar baa iska inta hore laakiin weli waxaan jeclaa inaan maalin u noqdo qof bulshada Soomaali siiba gabdhaha da'adeeda ah hal abuur u sameeyso waxay ka faa'iidaan. Ayaan Dhalad ganacsigeeda cusub waxa uu caan ka yahay baraha bulshada waxaana ku xiran gabdho badan oo la dhacsan adeegyada ay soo saartayaan. Haddaba maxay isugu jiraan adeegyada kala duwan ay soo saarto Ayaan Dhalad? waxyaabahan soo saaro waxyaabo badan baa sameeya oo dumarka gabdhaha khuseeyo haddii aan ku soo gaabiyaan waxa weeye waa quruxda gabdhaha oo dhan haddii noqoto collection oo dhan ah design soo saara haddii ay noqoto product wixii loo isticmaali lahaa skinka haddii ay noqoto makeup also makeup artist ahay sida waa sameeya so waxyaabo quruxda gabdhaha waxa ku saabsan oo dhan waa sameeya. Qorshaha ay u timid caasimadda ayaa ah in ay indhendheen ay ku sameyso baahiyaha dumarka xagga qurxinta iyo sidoo kale kareemooyinka waxayna qorsheynaysaa inay xarun weyn ka furato caasimadda Muqdisho. Maalinta business ka soo galay ilaa hadda family friends inta aan aqoonin ka fara badan yani dadka dhan waxay dhahaan go ahead hore soco waan ku dhihi karin maanta caqabadaas aan kala kulmay ahayn in la support kareeyo Muqdishona maanta sababtaan imid waxa weeye gabdhaha ugu fara badan Muqdisho maanta ay joogaan oo ay dhahaan yani ayaan gabar yar oo daayar baa tahay hore u soco support marka wax caqabada kale ma kulmeen hore u soco fidamay. Ugu dambeyn Ayaan Dhalad ayaa fariin u marsiisay Muqdisho Cable TV gabdhaha jecel inay bulshadooda u soo bandhigaan hal abuurkooda. waxaan aniga aaminsanahay kulay maanta gabar Soomaali anaga haday noqoto inaan wax qabano ragga ma gaari karno waan gaari karaa ma dhihi karo waan ka badanahay laakiin waa yani waxaan leenahay maskax aad u wanaagsan awood aqli iyo karti marka gabar kasto oo da'adeeda ah waxaan ku waanin lahaa kula talin lahaa inay hore u socoto waxa ay ayada ay hebe Ilaahay u siiyay oo hal abuurkeeda ah oo maanta horumar ay ku gaari kartana qofna inaan kala tashanin qofna inaan yani ka cabsanin ee hore u socoto wax qabsato so waxaan rabaa inaan yani aniga haduu Ilaahay gaarsiiyo awoodeedana aan yeesho gabar kasta oo Soomaali oo aniga awoodeeda u leeyahay inaan caawiyo inaan wax u qabto horumarna aan gaarsiiyo yani anagana adduunyanaha aan la tartano business ma yaasha adduunyanaha ku jirno.